golaha wadatashiga oo ka kooban ra'iisul wasaare Roble madaxweynayaasha shanta dawlad goboleed iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta oo axada si aan baqaadi doona shirkooda waxaana maanta ka qayb gali doona xubnaha midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya shirka oo muddo 5 cishaha ka socday magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in madaxdu ay heshiis ku gaareen kaas oo ay maanta ka wada doodi doonaan midowga musharaxiinta si loo soo saaro warmutiyeedka shirka golaha wadatashiga qaran ayaa kulankoodii shalay ugu dooday cabashooyinka la xiriira hufnaanta iyo daahfurnaan la'aanta doorashada iyo talooyinkii ay u soo gudbiyeen midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo beesha caalamka iyada oo meesha laga saaray qodobkii amniga ee la isku mari waayay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Mucallimo ayaa sheegay in shirka la isku afgartay isla markaana dhawaan si rasmi ah shirka loo soo gabagabeyn doono shirka golaha wadatashiga oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa ee ay yeeshaan ayaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed waxaana xogaha la helay kamid ah in madaxdu ay ku heshiiyeen in muddo 60 cishaha lagu soo dhameystiro doorashooyinka iyo in amniga dalka ay saameyn ku yeelato AMISOM Axmed Wacane Somali Magazine